wanaagsan saaxiibayaal qodobada wararka caawa waxa ugu waaweyn maxay ahayd soo dhaweyntii la yaabka lahayd ee falcelinta adag ka dhalatay oo madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto uu sameeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud muxuuse Ruto kaga gaabsaday in uu madaxweyne Xasan Sheekh ugu yeero darajada madaxweyne haddaba waxaan idila wadaagi doonaa falcelin ka dhalatay Ruto oo madaxweyne Xasan Sheekh ku salaamay isaga oo weydiinayo waa sidee xaaladda Muqdisho arintan oo dadweynihii ugu tirada badnaa ay ka falceliyeen ayaanu idila wadaagi doonaa oo dadku qaar xitaa ay ku tilmaameen inay tahay mid bahdil ku ah madaxweynaha jamhuuriyadda haddaba marka hore waxaan rabaa inaan ila daawato kadibna waxaan ku samayn doonaa falanqayn iyo sidoo kale falcelintii ka dhalatay oo aan rabo inaan idila wadaago. Welcome, my brother. Thank you very much. How is Mogadishu? It's good? Yes, raining. barnaamijkeena ayaa caawa kaga bogan doontaan talaabadan maxay tahay safarka madaxweyne Xasan Sheekh uu ku tagay magaalada Nairobi iyo kulamada kala duwan ee uu halkaasi uu ku leeyahay madaxda dalka Kenya maxaa ka jira in lagu cadaadinayo in xal waara loo helo xasaradaha ka taagan dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya waan idin la wadaagi doonaa sidoo kale barnaamijkeena waxaa qayb ka noqon doono xaaladda Puntland oo ka sii dareyso iyo sidoo kale kulamo kala duwan oo magaalada Muqdisho lagu karkarinayo Puntland oo heegan gelisay ciidankeeda haddaba tani ma waxa ay noqon kartaa mid Puntland ay kaga gol leedahay inay kaga hortagto qorshe walba oo ay ciidamo daacad u ah dowladda Soomaaliya isaga kala gooshayaan magaalooyinka Puntland barnaamijkeena ayaanu caawa ku soo qaadi doonaa sidoo kale waxaad daawan doontaan safiirkii Somaliland ee Yemen oo la soo warinayo in isaguna raq iyo ruuxba lagu laayahay kadib heshiiskii ay wada galeen madaxweyne Cirro iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ma kooxdii xuutiyiinta Yemen ayaa afduubatay ehelkiisii oo afka furtay ayaanu idila wadaagi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilowno barnaamijkeena caawa muuqaalkan waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya oo ka degay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud halkaas si ballaaran ayaa loogu soo dhaweeyay iyada oo safiirkii dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo dowladda waddanka Kenya ka mid ah ay soo dhaweeyeen inkastoo maamuuska soo dhaweynta madaxweynuhu aad loo durayo haddana dhacdada cajiib kale waxay dhacday markii ay wada kulmeen Ruto iyo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Ruto ayaa ka gaabsaday inuu Xasan Sheekh ugu yeero madaxweyne waxa uu ku soo dhaweeyay weedha ah sidee tahay walaalkayga laakiin waxa uu raaciyay waa sidee Muqdisho madaxweynuhu oo ka galaan gashay ayaa ugu jawaabay in xaaladda magaalada Muqdisho ay tahay mid roobaysatay oo markaasi nabad ah balse fariinta ku jirta falanqeeyaasha dhinaca diblomaasiyaddu ay sheegayaan waxay tahay in hadalka Ruto uusan iska oran oo ay macno badan xibaarsan yahay tusaale waxaa la oran karaa Ruto oo hore u sheegay in madaxweynaha Soomaaliya sharciyadu ay ka dhamaatay waxa tani uu ka gaabsanayaa baa leeyahay in dhinacyada kala duwan ee ku lug leh siyaasadda Soomaaliya uu kalsooni tiro maadaama dowladda Kenya ay hadda ka shaqeynayso dadaal lagu heshiisiinayo dhinacyada mucaaradka oo waxa uu diidayaa isaga oo markaasi ka gambanaya inuu si toos ah darajada madaxweyne ugu yeero ama uu aqoonsado inuu yahay madaxweyne sharciyada haysta taasi oo dhinaca kale mucaaradka ka careysiin karta waa uu ka galaan gashay bay leeyihiin laakiin dadku qaar waxay ku tilmaamayaan bahdil siyaasadeed oo in darajadiisa madaxweyne loo aqoonsan waayo Xasan Sheekh ayaa ay ku sheegayaan inay tahay bahdil iyo dharbaaxo ku dhacday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca kale in uu yiraahdo waa sidee Muqdisho oo uu oran waayo waa sidee Soomaaliya dadku qaar waxay ku macneeyeen inay tahay mid kale oo hadalka Ruto laga garan karo inay tahay fariin cad inay ku dhex jirto marka waxaan rabaa arrintan dhex martay madaxweyne Ruto iyo madaxweyne Xasan Sheekh ayaa rabaa inaan idila wadaago muuqaalka waa kan Ruto uu soo dhaweynayo madaxweyne Xasan Sheekh. Welcome, my brother. Thank you very much. How is Mogadishu? waa tahay artayda ku aadan hoos ayaa noogu reebi kartaa warbixinada kale ee barnaamijkeena ku jira hal laba haddaan fiirino xaaladda Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ka sii dareysaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni waxaa lagu soo waramayaa inuu go'aan uu ka gaaray ciidan ka sheegta dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan Puntland xoguhu waxa ay ku waramayaan in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni xitaa uu go'aamiyay in
General Jimcaale Taakar ninka dowladda Soomaaliya ugu magacaaban taliska qaybta koonton afraad in uusan soo geli karin deegaanada Puntland isaga iyo hubka uu wato iyo ciidamada dowladda Soomaaliya ay siisay oo lagu sheegay inay ku kala sugayeen magaalooyinka Gaalkacyo, Boosaaso iyo sidoo kale Garowe ee maamulka Puntland. haddaba wararku waxay warinayaan in ciidamada Puntland hadda heegan buuxa la geliyay iyaga oo dhinaca kale u diyaar garoobayo sidii ay u sug lahaayeen amniga guud ee maamulkaas. dhinaca kale waxa ay u diyaar garoobeen inay ka hortagaan dhaqdhaqaaq walba oo lagu sheegay inay tahay mid ay wadaan ciidamada taabacsan dowladda. dhinaca kale ciidanka daacad u ah dowladda federaalka Soomaaliya oo marka lagu kala sugnaa magaalooyinka Gaalkacyo iyo Boosaaso ee maamulka Puntland ayaa iyaguna dhaqdhaqaaq ka bilaabay halkaasi. mar walba waxa laga baqan qabaa inuu dhaco isku horimaad u dhaxeeyo ciidanka maxalliga ee Puntland iyo kuwa taabacsan dhinaca heer federaal. wareegi doona warbixinada kale ee kusoo kordho. marka waxaan rabaa inaan idila wadaago safiirkii Somaliland oo lagu soo waramayo in ay kooxda Xuutiyiinta ay la degeen oo raq iyo ruuxba lagu laayahay. Somaliland wakiilkeedii ama safiirkeedii Yemen waxaa lagu soo waramayaa in xabsiga loo taxaabay. haddaba Idris Aadan Raage oo ahaa wakiilkii Somaliland ee Yemen ayaa hadda macluumaadku ay soo sheegayaan in laga afduubtay gudaha magaalada Sanaa sida ay qoreen qoyska Idris. ehelada Idris ayaa sheegay in mas'uulkan uu ku jiro xabsi tan iyo 13 Juun iyadoo ilaa iyo hadda aan la helin wax xiriir ah ama xog rasmi ah oo ku saabsan halka lagu hayo xaaladiisa caafimaad iyo midiisa amni toona. qoyska ayaa sidoo kale sheegay in tan iyo markii la xiray aanan loo ogolaanin in uu xiriir ula sameeyo qoyskiisa isla markaasina aysan jirin cid si rasmi ah u sheegtay sababta ka dambeysa xarigiisa. Idris waxa uu ahaa wakiilka rasmiga ah ee haysta ruqsad sharci ah oo uu ku gudanayo waajibaadkiisa taasi oo ah kiis siinaysa dhinaca diblomaasiyadeed oo u baahan hufnaan iyo faahfaahin dheeraad ah ayaa ay sheegeen ehelada mas'uulkan. ilaa iyo hadda mas'uuliyiinta Yemen ma aysan soo saarin wax war ah oo ku saabsan sababta loo xiray wakiilka Somaliland ama talaabooyinka sharci ee laga qaaday taasi oo sii kordhinayso walaaca qoyskiisa iyo sidoo kale dadka la socda xaaladiisu ay muujinayaan. qoyska Idris Aadan Raage ayaa ugu baaqay hay'adaha ay qusayso inay si degdeg ah u sheegaan halka uu ku sugan yahay iyo xaaladiisa loona ogolaado in uu la xiriiro ehelkiisa iyagoo ku eedeynayo in arrintan loo maareeyay si aan waafaqsaneyn sharciga iyo mabaadi'da bini'aadantinimada. haddaba warbixintaas aragtida hoose ayaa noogu reebi kartaa.